darsigan kale waxaa la dhahaa bipolar disorder. Bipolar disorder waa xanuun aad u fara badan dadka xoog buu ugu dhacaa. maxaan ku raahdaa waxaa ku dhacaya qofka maaniya wax la dhaho galaya marna wuxuu galaya depression wax la dhaho ayuu galaya qofku mar wuxuu subinayaa sheeg maxaan ku raahdaa aad u farxad iyo qosol iyo degdeg iyo labis iyo maaragtay high energy wuxuu la imaanaysaa u joogto waxa la soo boodaysaa xoog fara badan shaqo fara badan activity zaid ah inaad maaragtay aad u dadaasho oo la dhaho wallahi qofkaaneetu uu maaragtay fircoon yahay qaar baa saas u yihiin waxay ku tagayaan waali ku galaya hurdada intay ka tagto u ordahayaan wuxuu subinayaan marka marna waxaad galaysaa depression wax la yiraahdo ayaad galaysaa bipolar xanuunka waxa la dhaho naagaha iyo nimanka isku soo ugu dhacaa macni af Soomaali aan moodka ma qaan wax la dhaho moodkiisa qofka isbedbedelaya marna wuxuu noqonayaa up marna wuxuu noqonayaa down hoos baad u dhacaysaa wuxuuna u kala waxaana maaragtay naagaha iyo rag isku soo ugu dhacaa qaybo kamid ah naagaha ku fara badan yihiin oo aad ugu fara badan yihiin xoogana boqolkiiba boqol rag iyo naagaha xanuunka isku soo loo qaadaya xanuunkan wuxuu u kala baxaa 5 qaybood bipolar 1 midka koowaad bipolar 2 iyo cyclisemic disorder iyo rapid cycling iyo mixed mid ah iyo dysthymia intaas u kala baxaa marka midda koowaad hadaan ka soo qaadano qofku waxa ku dhacay suu u joogo wuxuu la imaanayaa farxad shaqo fara badan ra'yi fara badan maxaan ku iraahdaa isha hurdada ku yaraanaysa qofka waxa ku dhacaysa uu isla weynaanaya grandiosity waxa loo yeelanaya anigoo hebel ah karbaha inta taagto waxa iska dhigaysaa qof adduunka dhan kala haya kibir saa'id ah oo bini aadamku lahayn caadiga ah oo dad artan qof kibir badan siisa maskaxda ku hay inuu jiran yahay kibir zaa'id uu la imaanaya wuxuu isu arkaa qof adduunka dhahaga inuu isaga yahay dhaqaale haysta lacag haysta wax kasta haysta suusaas ugu jira oo midda koowaad hurdada ku yaraanaysa hadal badan buu la imaanayaa aad buu u hadlayaa midda koowaad ilaa marka dambe qofku uu maniig galo uu qaldamo markuu qaldamo waxa ugu xig muddo qaldanaantaas waxay ku soconaysaa qofku wax waalan uu noqonayaa psychosis buu galay waa waalanaya wuxuu noqonayaa 3 ilaa 4 bilood ayuu wuxuu ku soconayaa qaladkaas waalida ah ayuu ku jiraya uu waalanaya soo taas ugu jira marka dambana 6 bilood dambe wuxuu galaa depression kaas oo ah qofku niyad jab isdil niyad xumo guriga inuu iska fadhiyo inuusan shaqaysan inuusan qubaysan inuusan waxba qabsan hadduu shaqaysan shaqada waa ka tagaya hadduu ilmo laha ilmihiisa ma ka warqabo gurigu dhex fadhinaya marka marna waa up marna waa down bipolar marka mid khatarta ah waa qofka waalina gelinaysa xoogan dhulka u dhigaysa depression ugu reeysa bipolar 2 baa ku soo hadhay bipolar 2 waa mild form baa la dhahaa waa mid iska khafiif ah laakiin dhibaatada u fara badan oo haysata aad u badan tahay aadna looma fahmo bipolar waxaana la dhahaa iyada aad uga fara badan maxaan ku raahdaa midda ii sheeg midda koowaad sababtoo ah midda qofka markuu waasho waa fahmaysaa hadiiba waad ka cararaysaa bipolar 2 waa midda dadka aad isugu dhib qabo waliba dadkan aad uma fahmo waa midda aad u fara badan qofku firfircoon la imaanaya si uu joogo ma waalanayo qofkan qof caadi ah hadalku badinaya labis buu ku waalanaya gabadha waxay qaadanaysaa dhar isu eg waxay rabtaa kabta iyo karinta iyo labiska iyo kaatumada iyo jijimaha ma baxayso ilaa maca wax ismarinayso bahalka ismarinayso uu isu eg yihiin wiiga gaas ay ku jirto dhibaato ka qabsanaysa guriga haday guri leedahay waxa ku mashquulaysaa guriga inay bedesho maalin kasta iidi dhaweeytay bedeshay soonka iidi ku xigtana waxa kula ninka alaabta bedel dhaqso hadduu subin waayna dagaal ba imaanaya waxa ku mashquulaysaa ilmihii dharka inay ka bedesho micnihiisu qofku waxa dhahaa foolish investment hal dhahaa wuxuu galayaa qarash aqal xumo ah wuxuu haysto iyo isma la eka wuxuu maaragta bixinaayo waxa laga yaabaa inuu gala qarash macna daraa maanta aadan garanin wuxuu subinaayo kharash fara badan hadduu nin yahay hadduu naagay waa isku mid ninkuna sidoo kale labis buu kwaalaya taajir buu noqonaya yaanta sayta sadaqada saas loo daanay ninkii hadduu gacan adkaan jiray iyo haddii kalebo wuxuu ahaanay nin taajir yaanta socdo warkii maanta lacagta waa daadinaya baa leeyahay saas lacagta u daadinaya hurdada yaraanaysa xarakaadkiisa banaanaya marka tan waxa waay mild formka bini aadamku waa u badan yahay mana fahmo wuxuu la imaanaya xanaaq qofku wuxuu la imaanaya dagaal
marka waa isla saxan daatirniyo maxaa saan u suubinaysaa qofku ma fahmaayo oo firfircoon maanta guriga waxaan ku qabtay naagtu waxay la daqiiqadan guriga uga shaqeeyay marka dambana wuxuu galaa depression iyo qalbi xumo waxyaalaha aad bipolarka caanka ay u tahay waxaa ka mid ah nin iyo naagba wuxuu galayaa sino sexual drive waa badanaya suuqa wareegaya qofku xilligu kacsan yamaaniyada ku jiro naagtu nin bay u baahanaysaa inay dhaleysata suuqa u galaysaa ninkuna waa dhaqaaqaya ilaa maaragtay 4 bilood 3 bilood inuu ku jira laga ugu yaraan 1 week bay dad ku jiraan suuqa wareegaya qofku ama reer halahaad ama yuu lahaanin mis control sababta controlka ka maqan marka kalena wuxuu galayaa depression aniga qof xunahay aniga ma fiicini ani maxaa adduunka ka ahay waxaa galaysaa calaacal iyo niyad-jab shaqadii kaa dhaawacda noloshii kaa dhaawacda marka Soomaalidu maxay ba dhahaan hebel wuxuu leeyahay jinniyatun bay ba dhahaanbo dhaqan ahaan idinku ay yaratihiin qaarna waxay dhahaan naga aamus heblo waxa saaran maxaan ku rahaa habartii baa saaran bay dhahaan dhaqan ahaan laakiin qofku waa jiran yahay habartii baa saaran wiigaas oo hawada maray ama uu saas yahay waa laga baqaya lama hadlayo suuq loo dhihi maayo ama waxa la arkay waa isbedel markuu firfircoon yahayna xagaa loo ordaayo waxa kaale maxaan ku iraada heer saru qofkii noqday waxay u qabaan qof fiican inuu yahay sababta firfircooni zaa'id marka qofka iska caadi ku aragto waa wax la yaab leh marka waxa la rabaa inuu isnaha dhowto depression ka baxo xanuunada wax joogta ama wax mar iimaanay qofka laakiin qofku waa qaba sanadka waxa laga yaabaa inuu la kulmo mar inuu laba goor la kulmo waxa soo haray dysthymia waxa waa qofka moose depression buu leeyahay iska niyad jabsan yahay 2 sano wuxuu iska ahaanaya down aniga saana ahay ma qabsan karo wax ma suubin karo iska niyad jabsanaysaa waxa ku haray cyclism mid dhahay iyadoo waxa way marna waxaad galaysaa up oo manic baa noqonaysaa marna waxaad noqonaysaa ishak depression laakiin marna bipolar 1 kala mid ma noqonaysa bipolarku waa waali wixiis waa zaid laakiin bipolar 1 iyo 2 iyo maaragtay iyo dysthymia waa ka fudud yihiin waxa soo haray mid la dhahay cyclismia maxaan ku raahdaa ishak hypercycling tan dumarka ay ku badan tahay dumarka aad ugu badan tahay waxa laga yaabaa hadda inaad ka tagto gabadh iyo faraxsan oo qoslaysa wiif hal saac kadib oo kula dagaash qofka ama kula dagaal ama wiilkii qofka jinni muu qaba hadda waa faraxsanaay maxaa ku dhacay sanadka dhan wuxuu ku jiraa isbedel badan dhag iyadoo mixerku waa isku qasan yihiin marna wuxuu galayaa up marna down qofka dabeecad xul ama alla yaabtid hadda waa fiicaya saacado kadibna maxaan ku qofka waa maaragtay ii sheeg dhibaato haysata kama u bixi karo dhibtii marka bipolarka waxay uga duwan tahay waxay kala caan ku yihiin lacala bipolartu dadka ah wax barashada ma dhameeyaan haday qabaan college intuu ka baxaya college buu galaya waa ka tagaya ma dhameysana wiligiis mid kale bilaabaya waa ka tagaya maalinba shaqo cusub multitasking waa dadka adduunka ugu shaqo dadka bipolarka aad ay u shaqeeyaan laakiin shaqadooda ma dhameystiraan waxay caan ku yihiin saaka dukaana gaarsiis laga furay birita waa laga tagay ma shaqeynaya meeshan lama sugi karo beridan waxa la aaday school waa laga tagay beridan waxa la furtay maxaan ku raahdaa program kale oo maxaan ku raahdaa use furtay program ha sheegin waa ka tagaya shaqo joogto ah oo qofku qaban kara male sallam malaha wuu boodboodaya maalinba meel buu maaragtay ku dadka bipolarka qaba ma fariisan kara laakiin aad loo fahmi maayo marka waxyaalaha maaragtay keena bipolarka wuxuu ka duwan yahay xanuunada isagu waa dhaxal labada waalid mid hadduu qabo waa dhaxlaysaa khasab waa dhaxlaysaa boqolkiiba 50 waa dhaxlaysaa wuxuuna bilowdaa xilliga 20 sano qofku uu galahayo ayuu ku soo baxaa waxa kale oo dhibaatooyinka keena waxa kamid ah maxaan ku raahdaa badi bipolarka waxa ku dadka dhaqaalaha haysta fiican ay ku dhacdaa oo qof aad u ladan ama qof trauma xoog ama dhibaato badan ku soo dhacday way ku dhici kartaa oo iska dhaqaale xun laakiin badi waxa loo ixiyaa dadkaas waana dhaxal bay galaysaa labada aabi hooyo haday bipolar qabaan waxa kugu soo baxaya xoog bay kugu soo baxaysaa bipolarka mid haduu qaba labadoodana boqolkiiba 50 waa dhaxlaysaa waxa soo raacay markii qofku bipolar yeesho xanuuno kala soo raacaya oo la dhahay anxiety waxay kala caan ku yihiin drugski aad ugu dheereeyaan gaar ahaan khamrada aad u jecel yihiin drugska intaysan begelin waxa la dhahaa dadka bipolarka qaba khamrada u fudud cabideeda sababtoo self medication baa qof markuu drugs cabayo ma ogtaa dhib baa ku haysta dhibki waxa ku baabi'isaa rabtaa inaad drugs cabto isqaboojisaa rabtaa oo garan mees wax ku haya laakiin waa inaad waxaan kugu dhagan oo ummadii ka dhex saaray inaad maaragtay iska dajiso wuxuu cabaya khamro jaad sigaar wuxuu cafiyahay malaha waxa soo raacay xanuunadii kala marka gaar u soo raacay isagiina intaas ayaa idin sheegay iyadana wixii kale su'aal waxay leedahay bipolarku
waraysi waa qofka wax lagu garaa waa la waraysanaya dadka la jooga la waraysanaya ama isaga isfahmi karabo oo inuu marna kacay marna dami is ogaan kara midda waalida noqonaysa intaan ka ahayn marka maxay daawona way leedahay xanuunkii ka hortagna waa leeyahay wayna ku badan tahay ummadda waxa laga yaabaa qof maanta wareega inuu xanuunkiisa la fahminin yaa qaba qof bible arkay qof soo jooga kacay firfircoonanaya marna dhulka galaya hadal badan la imaanaya boqolkiiba boqol dadka waa qabaa waana ku badan yahay waana xanuunku waa jiraa waa laga yaabaa bible inaa aragtaa qof inta mar waashay kadib iska fiicnaada hebel mar buu waashaa marna waa fiicnaada laakiin inta 5 xabo kale waxa laga yaabaa 4 xabo kale aad ay ugu badan tahay dadka waliba dumarka aad loogu sii maaragtay lagu aadeeyaa sababta way leeyihiin waxaan oo dhan wax su'aal yaa sa arkay hadda ka hor ma haysaan iyo wax su'aal yaa weydiinay min arkin qof soo jooga guriga dhan ka shaqeynaa waa maal guriga bedela waa aragtana hooyooyin badan guriga bedelayo daahi soo gadaayo oo labiskii mashquul ku aho maanta waxa la yahay in labisana maanta guriga ku jid dharka isu feerinayso haye labiska caadiga kuma jiro laakiin waxaan waa excess waa zaid waa wax la arkaa wallahi yaabaysa labada iidood maxaa u dhaxeeya wax yar u dhaxeeya daah waa la bedelaa roog waa la bedelaa kuraas la bedel wax kasta hadaan dhaqaalo u saa iban haduu qofku lacag waay deyn buu raadsanayaa وبحيا وحول هاي دين أنا واحد أركي قبل أنت أرضي مرك إيدي لو جدي واي لا بعد دركي لو جدي واي يقولوا إنك بدل واي أنت بحد قبل سلسلتك قعدت سلسلة دي ساقطت في ريا لبك هي استقف كاس سلسلة دي مرك ساقطتي هذا قبل سلسلة وقبصتي إن واقعتي ترجور عن كل سبينك يا دكتوري هاي غلط كي أسكال مرك يا فهم واي وقف حنون صار مسكينة ودي بعتيسن ما wax normal ah jira ma ogta waxa laga yaabaa rabi cycle oo kale inay qabto hooyada warka ma heys ama mixed ay qabto kale ma fahamtay maanta ay kacsan tahay biri waa digsan tahay moosile naagaheena hooyooyinkeen ma aragtay way dhaawacan yihiin xoogooda ma fahamtay hooyooyinkan xoogooda waa dhaawacan yihiin sababta wayga u dhaqmayaan waa wayga loo soo koriyay iyaga dib baa lagu soo koriyay afxumo iyo cay iyo dhibaatiyo naag baa taa lagu soo koriyay wiilka ka fiican khasab waa dhaawacan yihiin hooyooyinka xoogooda ما هو Soomaali maanta ku kortaa jirta aday wiilka isku si in lii koriyo ma jirta hooyo Soomaali ku kortay ma leh all waa isku mid marka iyaga waa dhaawacan aday ku sii dhaawacayaan su'aasha maxaa waaye stress markuu ku hayo percentage ka u tahay risk ina bipolar high miyam suuyani waa high waxayna ku xiran tahay genetical hadii aad hays ku qarsoonaa dhaxal ahaan high bay kugu noqonaysaa boqolkiiba boqol waa gaaraysaa laakiin hadii ma aragtay uusan genetic aad u wadanin boqolkiiba 50 waa kugu soo bixi karaa Dr. Zani calaamadaas ma isku arkin laakiin I have a lot of problems so uga hortagi karaa I'm always sad uga hortagi karaa always ma faraxsanid waxyaalo badan baad uga hortagi kartaa waxaad wax la psychotherapy wax la dhahaa jirta in la soo xiriirto waaye gabadha kansalna waa joogaan fahamtay daawada waad u baahan tahay ان waxa la suubiyaa wax la dhaho psychotherapy qofka maskixiin baa loo daaweynayaa waxaan kale la siinayaa maxaan ku rahay daawada waa la siinayaa daawada wuu qaadanaya mar walba waxaan jeclahay inuu qof ii sheekeenayo iga qoslina ama aan wax daawanayo farxad ma haysatid farxada raadinaysa farxada waa depression kaas marka laga hadli doono waa depression sababtoo ah farxada ka dhunta qofka severe depression ku jiro habeertu wax farxada ma laha mar kasta waa iska qalbi xun yahay marka daawada way leedahay ان psychotherapy wala suubinaya qofki marka adiga hadaan waxaas aad hadda tabar u haynin xanuunka waxa la dhahay marka fahamta boqolkiiba 50 qofku waa biskoonaya waxa tray garaysaa inaad suubiso exercise waxa tray garaysaa massage inaad suubiso jirka fahamti waxa tray garaysaa waxyaalo badan in xanuunka xanuun la daaweyn karo iyo maskaxda u sheeg u jirana taas hay qof markuu seexdo kale wuu qarwaaya wuxuu ku qarwaayna malaqaano wuu ooyna markuu soo kaco hadana soo u joogo wuxuu leeyahay maanta inaad dhimanaya mooda inaad si noqonayo waxba ka qadmo su'aasha saaran ku tii waa xaalada xanuunna waa isku jira waaye qarag wuxuu galayaa anxiety xanuun la dhahay ma fahamtay oo hintaan qofku uu ooynaayana waxay noqonaysaa depression ka aad dadku uu ooyaa ma fahamtay marka waxaad waa wax isku qasan mixed anxiety depression xanuun ku waajib la dhahay jira marka waxaad subinaysaa in imo aan daawo ku siinaa psychotherapy ha lagu suubiyaa macnaheedu adiga waxaad soo martay dib mana ogida laga yaabaa maskaxda waxa laga yaabaa subconscious mind kaaga shaqeynaya
sababtoo adiga dhibkii kugu soo dhaca meeluu kuugu arusan yahay kaama tegin weligaa kama ad hadlin weligaa kama ad sheekaynin cidna uma ad sheegan dhibkaad soo martay marka hadhowt wixii dhan oo kugu soo noqonaya markaad seexato may qofka uu fiyoya markuu seexdo loo sidaa noqonayo markuu seexdo soo hadda haa fiiri markaad seexato maskaxda saddex qaybood waa conscious iyo preconscious iyo subconscious subconsciouska dhibaatadii qofka soo martay habeenkii waa soo daadinayaa marka taasaa keenaysa waa la qarwaa waa la taahaa ilkaha jiriq laga siiyaa way badan tahay calaamadaha qofka lagu arkaayo ani waxaan rabaa inaan ku weydiiyo naxdin qofka uu qabo oo kale asagoo cid ka naxsatani jirin oo iska naxaayo ciil badan oo qabanayo inuu ooyo oo kale marmar aa qabanayso taasoo kale maxaa la dhihi karaa waxaa la dhihi karaa gabadha waxay qabtay isku mid ahaatiin mixed anxiety depression baa la dhahaa qaybna depression waa leedahay anxiety waa leedahay sidoo kale dhibaataad soo martay weligaa kama hadlin ama yaraanta ha ku soo martay ama weyninka ha ku soo martay ama hadda nolosha Nairobi adag gabdhaha da'diina dhibta waxay kala kulmaan Nairobi dhibaato adag baa taasha gabdhaha yar yar oo ehelkooda ka soo tagay qaraabadooda dhib badan meeshan ku qabaan ama hadda dhibaato la kulan kala dhibaatad qabtaa ma fahamtay xanuunkan oo kugu soo baxay daaweyn baad u baahan tahay in wax lagu iyo sida waxaan uga hortagi lahayd iyo naftigaaga qofku Soomaalidu waa dad si ah qofka dhibtiisa kama sheekeeyo sababta aad ka sheekayso waxaad ka baqaysaa warkii in suuqa laga wareejiyo ma fahamtay laakiin waxaad raadsanaysaa dad warkii ku celin kara haddaad ka hadasho maskaxdaada dhibkaan ay ugu dhacaysana aha kana aha waa dhibtooda dhowr haddaad qofka xaaladda hadalkan daawo ilaahay kuu saaray qofku waa inuu helaa wuxuu la hadla counseling inuu la hadlo dhakhtar psychiatric inuu la xiriiro wuxuu inaad la xiriirtaa laga rabaa hadda kadib haddaa inta joogto waxaa lagu barayaa techniques aan bari doona gabdhahana idin bari doona weeyaasha naxdinta saska qarowga xanaaqa oohinta sida looga hortago waxaan kugu yeeray waa in la baro waa baranaysaan bismillaahir rahmaanir rahiim doctor Sameeman aad baa u mahadsantahay horta qof walba feelingkiisa ka hadlay alxamdulillah aniga intaas oo feelna isku ma arkin laakiin cudurka markaan fiiriyay qaab kasta wuxuu ila noqday cudur la bedelay markii inta la yimid laakiin xagga Soomaaliya buufis loo aqoon jiray qofkas buufis buu qabaa qof fircoon ama busi kale ahaan jiray laakiin inta markii buufis wuxuu isku bedelay dhoof iyo wax la mid ah marka dad asxaabnahay ama dad la xiriira way jiraan oo aan ku arkay buufiskaas marka ayaga waxay gelin ka siin lahaa waxa lagu daaweeyo iyo soo kaxee daruusta maanta idin bilaabatay waxaan idin barayaa wax alla wixii dhibaatooyinkaas oo kale sidii idin bari lahaa 6 gabdhood baa idin taagan oo idin baraysa oo diyaar idin ah imaa dadka soo kaxee la imow wax kasta xanaaqsi loo baabi'iyo sida oohinta looga hortago madax xanuunka sida looga wax kasta waan idin barayaa imaada qadaamodan